السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إلهو نقدي وهنوصن dadkana hanuuniya dhammaan dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka Kufaaco ka dhageysanaya raadiyo Foorame kana daawanaya Somali Canadian TV barnaamijka Kufaaco maanta waa maalin Salaasa ah bisha Maarch 2024 aniga oo fadhiya masaajidka Madiinatu Munawwara oo masaajidka Nabiga sallallahu alayhi wasallam dalka Sacuudiga waxa igu soo dhacay waan akhriyay suuradan ku taala suuratu Sukhruf aayad ku taala oo aayada 53 ilaa 54 ilaahay wuxuu leeyahay فاستخف قومه فأداعوه إنهم كانوا قوم فاسقين waxay ku dheeldheereen oo fircoon ku dheeldheelay oo dadkii yaraystay oo aqligooda ku ciyaaray dabadeedna ilaahay wuxuu leeyahay way ku adeeceen waxayna ahaadeen kuwa faasiqiina wuxuu u sheegtay ilaahay uu ku celceliyay way rumaysteen waxaan uga wadaa in badan dadku inay leeyihiin xaamid cali cilmi oo nin wadaada ah maxaa Somaliland ku diray waxaan rabaa aayadan waxaan soo qaadanayaa in ay dhibayso waxa aan arkayo oo dad badani ila arkaynin anigoo beed ilaahay fadhiyo rabadaan tahay inaan masaladan aan ka hadlo oo ah tolkay iyo qoomkaygii aan ka dhashay sida loogu ciyaaray ee aqliga looga dilay ee loogu dheeldheelay Somaliland waxbaynu isku darsannay Soomaalidu hore waxay u tiri ninka diida sinaantaada ha ogolaasanayntiisa way soo galeen jabhadii sanad dhibaatay geysteen boorama gogol loogu dhigay waa la cafiyey waxaan leenahay dhul qaniya waxaan leenahay bad waxaan leenahay macdan waxaad arkaysaan beeraha yagii oo dadkii faranayaan in kiba looga baabiinayo waad arkaysaan biti waxa ay ku sameynayaan waad arkaysaan dad waxay tacbadeen in la leeyahay iyagoon dawlad ahayn adduunyo ictiraafsanayn dhibaatada iyo dulmiga ay ku hayaan waxaad ogeydeen in waxay isku darsadeen qabiiladu waxaynu ogeyn 8 bilood hubka noocyadiisa khaatimo lagu garaacayay oo ay bahayanagu Soomaali ma rabnaa waad ogeydeen dibtii ka soo gaadhay maanta oo maamul jira waxaad ogeydeen arrin markii uu baarlamaanka haystay wixii gadabuusiyo warsangaliya dhulbahanta iyo ciise lahaayeen inay jirtay ku yidhi war way baxayaan ee uu yidhi koranku inoo buuxa baarlamaan baa la sameeyey inta ay ku fadhiyaan gadabuusiyanta ciise ku fadhiyo inta uu ku fadhiyo qabiilada kale ee daaroodee harti la isku daray isaga baa ka badan wasiirraa la qaybiyey agaasimayaal baa la qaybiyey ciidamaa la sameeyey ma waxaasa waxa aqliga bila'aanka galaysa in la yiraahdo waxbaynu wada leenahay waa dawlad iyo maamul marka ay ka faa'iideystaan ninka baahan way nabigu xadiis wuxuu ku yiri nimankani waxay gadabuuso ku dileen waa banaaqada xamar baa tagaysa xildhibaanadii iyo dadkii hadlayay iyo dadkii wax loo dhibay waayada kuwii gadabuus waxa ku dhacay dhibta aad arkaysa nabiguna waa kii xadiis lahaa waxaan ka baqayaa balaaqada awgeed in laba dulman ii yimaadaan oo ka balaaqada leh oo kii maskiinka ahaa balaaqa awgeed maanta waxa gobolka awdal ka taagan aad arkaysaan waa waxa dhibaya ee aad arkaysaan aniga oo sooman oo fadhiya masaajidkii rasuulka Madiina aan uga hadlaya waa waxaan arkayo dhibaatada haysata waxba la qaybinaya intaasoo qof bay qaadanaya kuwani way baahan yihiin wixii la siyaabo wax kale uga wanaagsan way waxa laga faa'iideysanayaa duruufaha iyo waqtiga ay ku jiraan waxa loo adeegsanayaa kuwa iyaga ka mid ah bale daahir ayaa madaxweynuhu dadkiisii baa la gowracay isagoo madaxweynaha xitaa kuwii dadka laga gowracay ma odhanin raalli ahaan waxaad ogeydeen dhibtii soo gaadhay dadka shacabka
ee lagu gowracay waddada cid ka hadashay ma jirto waxaad arkaysaa culimmadii oo hadlaya oo iyagii taageersan kuwa uu aqoon-yahan la yidhi oo iyagii taageersan waxaan nahay dad Soomaali iyo midnimo raba istaraatiijiyada iyo meeshaan ku naalo waa imtixaan ilaahayoo ilaahay uu ina imtixaamayo waxaan ku naalaa meel goda oo dhankana Jabuuti ka xigto dhankana Itoobiya ka xigto dhankana iyagu inaga xigaan marka waa victim waxa uu ku dhex jira Gadabuursi waxa loo qaybiyay 3 qabiil baa loo qaybiyay isagoo hal qabiila oo ah Habar Cafaan Makaahiil iyo Maxar Cas waa waxa ugu daran oo aad ogtihiin dhibaatada maanta Awdal State uga socon laada aan u rabna midnimada ummadda Soomaaliyeed in loogu gargaaro dowladda federaalka waxaan leeyahay madaxweynaha mudane Xasan Sheekh iyo madaxweynaha Jabuuti dadkaasi gargaar degdeg ah oo in codeymo loo sameeyo oo nimanka arkaysaan 9 nin oo reeraba loo shaqeeyaa waxaan barnaamij ka sii daayay gabadh jaamacad ka shaqaysa PhD ka sameynaysa ay ka diyaarisay habka ay dhaqaalahoodu yihiin waxaad arkaysaan dhaqaale xumada haysata airport la'aanta haysata waxu gargaaray ilaahay mooyaane ma haystaan marka waxaan ku gabagabeynayaa xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam inaan nacabahay reer ma dulmiga iyo dhibaatada dadkayga lagu hayo dhibaysa nabiguna uu leeyahay unsur akhaaka daaliman aw madluuman waqtigan waqtigii fidnada waan ogahay sabir kuna amray nabi laakiin haddana xaqaka aan sumayno wanigoo taftiraa raadiyo kuulana Soomaali kan TV waa Xamed Sultaan Cali Cilmi Sultaan